madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ka fikirayaan inay wada hadal la u furaan Kuuriyada Waqooyi. dawladintaas waa qaar ka mid ah qodobada warka duhuraan xilliga adeegna aqbaraadkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. marka dawladda ku soo dhawaada warkii fiisan adoon saamaxdan oo Cabdinaasir Daahir Sibriya waa duhur Khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha 8 sanada 2017 aan ku bilaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa hortay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kulankoodii Khamiislaha maanta ka dhacay Muqdisho waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ka warbixiyay howlaha shaqo ee maamulka gobolka Banaadir waxaana dhinaca kale oo ka codsaday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya inay kordhiyaan miisaaniyadda dawladda ay gobolka Banaadir sida warkaan ku eegay wariyaha Nuur Saciid Tahlil mudane Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka hor hadlay kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre waxa uu sharaxay waxyaabihii u qabsoomay maamulka gobolka Banaadir isagoo tilmaamay in maamulka gobolka uu hirgeliyay qorshayaal dhaxalgal ah oo muuqda isla markaana aan caasimadda horey looga hirgelin duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed waxa uu ka codsaday dawladda dhexe ee Soomaaliya in maamulka gobolka Banaadir loo kordhiyo dhaqaalaha soo gala ama qoondadooda si loo xaliyo howlaha balaaran ee maamulka hor yaala iyada oo mararka qaar ay dhacdo in shaqada golahan loo joojiyo arrin si gaar ah loogu horumarinayo caasimadda Muqdisho waxa ka mid ah sida maalinta nadaafadda ee khamiis walba ee bisha u dambaysa haddana waxaan si xushmad leh uga codsanayaa golahan wasiirada ee qadarinta mudan wada shaqayn lagu garab istaagayo dhamaystirka geedi socodka dib u soo noolaynta dib u dhisidda dib u casriyeynta iyo horumarinta Muqdisho annaga dhankeena maamulka gobolka Banaadir ahaan iyo dawladda hoose ee Xamar waxa aan diyaar u nahay la shaqaynta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah wadar iyo wasaaradda mudan ra'iisul wasaare xigeen golaha sharafta leh waxba yaan hadalka idinku badinayna waxa aan ku faraxsanahay in aan ku soo gudbiyo codsiga kordhinta qoondada gobolka Banaadir si rasmi ah si uu golahu uga doodo go'aan uga qaato aniga oo si ixtiraam iyo qadarin leh mar labaad uga codsanaya in ay naga aqbalaan oo ay noo ogolaadaan codsigan gobolka Banaadir iyaga oo tixgelinaya culayska saaran gobolka Banaadir iyo baahida dhabta ah ee uu qabo kordhinta qoondada waad maasantihiin dhammaan golaha sharafta gudoomiyaha gobolka Banaadir waa markii ugu horeysay oo uu golaha xukuumadda hor dhigo hiigsiga caasimadda iyo muujinta lakabyada uu leeyahay isla xisaabtanka sidoo kale duqa Muqdisho ayaa la yimid qorshe cusub oo lagu casriyeynaya caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho Nuur Saciid Tahlil raadiyo iyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay wasaaraddu ka howlan tahay soo celinta xarumihii wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dalka ay ku leedahay gobolada dalka guud ahaan wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya ayaa hadalkan jeediyay xilli la furiyay wasaaradda waxbarashada xarunta ay ku leedahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir wasaaraha Soomaaliya oo xareey ka jaray dib u howlgelinta loo sameeyay wasaaraddaasi jaamacadda ummadda qaybteeda ma arkaysaa gaheer waxaan la soo wareegay 3 bisha Juulaay talaabo weyn ay noqotay dadka Soomaalida ku farxay maanta halkan aan joogno waxaan anaga ballan ku qaadnay aan keenayna haddii Ilaahay yiraahdo xarumihii wasaaradda waxbarashada ee leedahay xafiiskii barahishta xafiiskii imtixaanaadka xarumihii kale ma arkaysaa oo ma kaliya ma aha Xamar laakiin meel walba xarunta ay waxbarashada ay ku leedahay meelihii kale oo ka jiray inaan soo celinaa naga go'an waxaan ka rabnaa arkaysaa dadweynaha Soomaalida iyo ummadda inay arrintaas waxaad ogtihiin in dawladda ay kor u soo kacayso dadweynaha waxaan ka rabnaa kalsooni waad ogtihiin tuhum iyo shaki in laga muujiyey sida loo maamulo waxbarashada deeqaha dibadda looga timaado
taas annagoo ka duulayno isbeddelka cusub xisaabtanka oo guudka ka yahay ra-iisul wasaaraha oo la rabo in wax walba ay noqdaan wax cad waxaan maalin dhaweyto aan midabada u aasay guddi maamuli doono deeqaha dibadda loo yimaaday carruurteena kaasoo ka kooban xubno ka socda baarlamaanka qaar ka socda aqalka sare xubno ka socda civil society-ga dad arkaysa aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda oo wasaaraddana ay ayadana qayb ka tahay laakiin wasaaradda ay hogaaminayso taas waxaan rajaynaynaa inay keenayso dadka soomaalida inay kalsooni helaan waxaan xaqiijinaynaa mar dambe in aysan dhicin haddii tuugaas ku jiri jiray maanta kujirimasa jiray dadka soomaalida si cadaalad ah loogu soo iibo annaga lagu aamino aan arkaysa waxaa sii kordhaya dilalka ganacsatada Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika loo geysanayo iyadoo ganacsatada dilalka loo geysanayo 20kii cishay la soo dhaafay ay kor u dhaafayso 11 qof oo Soomaali ah si warkaan ku soo diray wariyaha Cabdullaahi Aamin Qorshe dilalka loo geystay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa soo taraya muddooyinkii dambe waxaana jiray dilal isxigxiga oo loo geystay ganacsato Soomaaliya kuwa goobo ganacsi ku kala lahaa deegaano kala duwan oo ka kala tirsan gobolada Limpopo, Gauteng, KwaZulu-Natal iyo gobolka Western Cape. Kooxaha burcadda ee weeraradan u geystay ganacsatada Soomaalida ayaa 20kii maalmood ee la soo dhaafay waxay nafta dhaafiyeen ilaa 11 ruux oo Soomaali ah kuwa goobo ganacsi ku kala lahaa deegaanada isku raranka ah ee Soomaalida ganacsiyada ku leeyihiin. 11 qof la dilay waxaa lagu dilay gobolada dalka qaar ka mid ah sida gobolka Western Cape oo ah midkaan hadda joogno caawa oo maanta ka soo qayb galnay aaskiisii gobolka Limpopo, KwaZulu-Natal, Gauteng goboladaas ayaa inta badan lagu leeyahay dadka haddaanu ka hadlayno. dilalka loo geystay muwaadiniintan ayaa waxay u kala dhaceen siyaabooyin kala duwan waxaana ku jira ilaa 3 dhalinyaro Soomaali ah kuwa lagu gubay goobahooda ganacsiga. dadka ayaga ah qaar ka mid ah waa dad lagu gubay goobahooda ganacsiga oo maxay ahayd iyo hantidoodiba lagu maxay ahayd lagu waxyeeleeyay waxaa ka mid ah dad lagu u dhintay dhaawaca gubitaankii la gubay u dhintay maalin kadib ama saacado kadib. dilkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Khaliija ee hoos timaada magaalada Cape Town habeen ka hor kooxaha burcadda ayaa dil u geystay ganacsade lagu magacaabi jiray Shire Maxamuud Tawiis xilli uu ku sii jeeday guri u deganaa. dhacdo sidee u dhacday waxa waaye asigoo dukaanka soo baxay oo ka soo tageen oo casho ka soo qaateen 3 saac bar oo dukaanka guri u dhow ay u socdeen abaarihii 3 saac bar ayaa tuuga ku gashay iyagoo guriga oo iska fureen luuq yar oo ay fiisan u fiirinayeen tuugadii markii ay arkeen ay xabad ku bilaabeen haddii ka kala carareen yarkii xabadii ku dhacday wuu dhintay oo Shire Tawiis oo marxuumka ay Allah u naxariisto haddana waxaa joognaa goobtii lagu aasayay. ilaa iminka ma jirto cid loo soo qabtay falalkan naxdinta ee lagu dilay muwaadiniintan Soomaaliyeed oo loo soo bandhigay warbaahinta waxaana jira baaritaano ay wadaan ciidamada booliiska. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, dalka Koonfur Afrika. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 60 ayaa xukun dil ah ku riday askar lagu eedeeyay inay gacan saar la lahaayeen maleeshiyaadka naftiidka Al-Shabaab al-Qaacida. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 60aad Sheekh Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunkan. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 60aad ay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 12 bishii 8 2017 saacaduna ay 10 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 60aad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow dable xooga Xasan Yuusuf Aadan in Xaliimo Maxamed Axmed 24 jir ah ku dhashay Bakool degan Baydhabo ka tirsan qaybta 60aad xooga dalka Soomaaliyeed. laba dable xooga Xuseen Aadan Cabdiraxmaan ka tirsan qaybta 60aad xooga dalka Soomaaliyeed maqane ah. saddex Maxamuud Xuseen Aadan in Sangaabo Warsame Cali 32 jir ah ku dhashay Bakool degan Baydhabo kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 60aad kusoo dacweeyay dambiyada kala ah kamid noqosho kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo dilkii marxuum ex dable xooga Cabdulqaadir Maxamuud Xasan iyo qarax miino oo lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidan ka tirsan qaybta 60aad oo fadhigoodu ahaa Daynuunay. dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta 60aad oo ku xusneed aayadda 178 suuratul al-Baqara
aayadaha 33 45 suuratu almaa-ida iyo qodobka 434 440 qeybtiisa labaad 491 297 221 oo lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad 19 194 xeerka ciqaabta 95 195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka oo maxkamadda ka hor qartay eedeysanaha koowaad in uu ka baxsaday qeybta 6aad xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana uu u galay kooxda nabadiidka al-shabaab oo uu horey uga tirsanaan jiray markay aragtay qiraalka maxkamadda uu ka hor qartay eedeysanaha saddexaad Maxamuud Xuseen Xasan in gurigiisa laga helay qorigii uu watay marxuum ex dable xoogga Cabdulqaadir Maxamuud Xasan markii la dilayay markay dhageysatay markhaatiyaashii maxkamadda la horkeenay midna u weydiisay marag furkooda iyagoo si buuxda u caddeeyey in guriga eedeysanaha saddexaad ay ka soo qaadeen qorigii uu watay marxuum ex dable Cabdulqaadir Maxamuud Xasan markii la dilayay markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaasha kale ah dable xoogga Xasan Yuusuf Aadan dable xoogga Xuseen Aadan Cabdiraxmaan Maqanay ah saddex Maxamed Xuseen Aadan ay wada yihiin dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay 1 dable Xasan Yuusuf Aadan 2 dable xoogga Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo Maqanay ah 100 xalaad oo geel ah oo ah magtii marxuum ex dable xoogga Cabdulqaadir Maxamuud Xasan iyo min 10 sano xabsi ciidan ah 3 Maxamuud Xuseen Aadan waxay ku xukuntay 1 sano xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan markana gaalkacyo wararka ka imaanay wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ee magaalada gaalkacyo ay gacanta ku soo dhigeen rag lagu tumay sidoo kalena hayay gacantana ku hayay falal la xiriira waxyaabaha ammaanka dooriyay inay ka ganacsadeen magaalada gaalkacyo ay soo galiyeen si warkan oo hadda ku soo diray wariyaha Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo gaalkacyo inoo soo warama ciidamada booliiska degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan kooxo muddooyinkii u dambeeyay ay ciidamadu ku raajoogeen isla markaana ahaa kuwa ka shaqaynayay ka ganacsiga waxyaabaha ammaanka dooriya taliyaha saldhigga ciidanka booliiska degmada gaalkacyo kabtan Awil Nuur Roble ayaa warbaahinta uga warramay howlgalkan iyo waxyaabaha lagu soo qabtay kuwaas oo saxaafadda loogu soo bandhigay gudaha saldhigga degmada gaalkacyo waxaana taliyuhu uu sheegay in howlgal ay ciidamada booliisku ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada gaalkacyo inay ku soo qabteen kooxo ka ganacsan jiray waxyaabaha ammaanka dooriya oo ciidamadu muddo ku raajoogeen waxaana taliyuhu uu sheegay in sharciga la marsiin doono alaabtaan arkaysaan waa alaabtii suuqa xaafad ka mid ah horumar baa laga soo qabtay dadka lagu soo qabtay waa dadkan saakay 12 baa ciidanku ka howlgalay markii la arkay in suuqii alaabtaan aad u qabsatay shoobareedu u badnaaday dhibaato badan ay u geysatay ciidanku waa u fariistay howlgal baa lagu fuliyay in la soo qabto soo dhigto haatan waxaa naga maqan aagaas laba haamood baa ku maqan alaabahan waxa weeye waa alaab kiimikaal la isku daray oo dadku ay ku magacaabaan caad oo ay u kala soocaan saqiir iyo kabiirka qof yar qof weyn qof ay ku qaldaan qof biyaha ugu shubaan qof shaaha ugu daraan qof aan aqoon ba u lahayn yiraahdan cabitaankaan ahaynaa maxaa laga yeelaa dadka la qabtay dadkan waxa laga yeelayaa maxkamadda howlgalkan ay ciidamada booliiska Galmudug ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee lagu soo qabtay waxyaabaha ammaanka dooriya ayaa isagu qayb ka ah howlgalla ciidamada ammaanku ay muddooyinkii u dambeeyay ka wadeen deegaanada Galmudug isla markaana laga hortagay wax kasta oo iyagu fududeyn kara in ay keenaan ammaan darro Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo waxaa dawladda akhbaraadka dibadda markana xagga u dilana waxaa kamid ah madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wada hadalada la furan ka fikirayaan dhigooda Kuuriyada Waqooyi warkan waxaa isha soo mariyay eeganaya wariyaha Aamina Xuseen Maxamed
madaxweynaha dowladda kuuriyada koonfureed Moon Jae ayaa sheegay inuu ka baaraandegayo wadahadalo dhexmara isaga iyo dowladda kuuriyada waqooyi waxaa kaloo sheegay Moon Jae inuu doonayo inuu u diro ergo wadahadalo la yeesha dowladda kuuriyada waqooyi haddii ay faraha kala baxdo tijaabooyinka nukliyeerka ay sameynayso dhanka kale madaxweyne Moon Jae ayaa u dabaaldegaya maanta Khamiis ah boqolkii maalmood ee ugu horeysay inta uu hayay xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkaasi taasi oo ku soo beegmatay xilli dalka kuuriyada koonfureed ay hareeyeen xiisado u dhaxeeya dowladaha Mareykanka iyo kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaa horaantii toddobaadkan waxa ay ku hanjabtay in ay ku weerari doonto kantaalada ridada dhaadheer jasiiradda Guam oo ah saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka taasi oo dowladda Mareykanka ku abuurtay walaac xoogan madaxweynaha dalkaasi kuuriyada koonfureed Moon Jae ayaa waxa uu sheegay in xukuumadaha Washington iyo Seoul ay ka wada shaqeynayaan sidii ay ula xiriiri lahaayeen xukuumadda kuuriyada waqooyi si ay u joojiso tijaabooyinka nukliyeerka dhawaan ayay markii golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ee cunaqabateyn cusub ku soo rogeen dowladda kuuriyada waqooyi ayadoon dhanka kale dowladda kuuriyada waqooyi ee dhagaha ka fureysatay qaraarka golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa kaasi oo ku baaqaya in kuuriyada waqooyi ay joojiso tijaabooyinka kantaalada iskaga gudba qaarad ka qaarad وهاجر داود ورحي دالكي دافعها عالم كان يقصو حلقان انت انا كاتا قالان دهر نمدان وانا انت وركا وركيس حيد بكا كل مدونا نقول عبد الناصر يا صحابتي وركي قلقا بقى شيء واحد كاتا هنا نبدو